nabad iyo nolol oo golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya kaga adkaatay doorashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka. dacwad ka dhan ah gudoomiyaha gobolka Banaadir oo loo gudbiyay xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, saraakiil sarsare iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka oo lagu eedeeyay fal aad u xun oo ay ku kaceen baarlamaanka Puntland oo ansixiyay mooshin shaki badan abuuray iyo sababta ka dambaysa oo la ogaaday. diyaarad military oo ku burburtay Filibiin iyo khasaare ka dhashay. qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato kaaha wararka. subscribe noo saar, muuqaalkana like noo saar, asxaabtaada u sheergalaysa saaxiibo adiga kulamid aan u yeelano. waa hagaag haddii aynu ku bilowno gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa maanta la doortay iyadoo nabad iyo nolol golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ay kaga adkaadeen loolan ku aadanaa doorashada gudoomiyaha guddiga ee heer federaal. doorashadan oo maanta ka dhacday teendhada Afisyooni ayaa waxaa lagu doortay Maxamed Xasan Ciro oo ka soo dhex baxay musharaxiinta kale ee la tartamayay. Maxamed Xasan Ciro ayaa horey waxa uu ahaa gudoomiyaha guddigan isaga oo horey isaga casilay, waxaana hadda la tartamay 4 musharax kuwa oo ay kala yihiin Liibaan Axmed Xasan Liibaan Shuluq, Cabdixiis Aadan, Cabdicasiis Yuusuf iyo sidoo kale Maxamed Muuse, waxaana isagu u wareega koowaad ee doorashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka kusoo gabagabowday mid isaga uu ku horeeya Ciro, iyadoo wareega labaad ee isugu soo hareen labada musharax ee kala ah Maxamed Xasan Ciro iyo Liibaan Maxamed Xasan Liibaan Shuluq. Maxamed Xasan Ciro ayaana waxa uu helay wareega koowaad 12 cod, halka Liibaan Maxamed Xasan uu helay 8 cod. ugu dambeyn waxa Liibaan Shuluq oo ay wateen golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya mucaaradka lagu garaacay wareegii labaad, waxaana Maxamed Xasan Ciro ku guuleystay doorashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal isaga oo helay 14 cod, halka Liibaan Maxamed Xasan uu helay 10 cod. Ciro ayaana waxaa wadatay nabad iyo nolol, ama si kale haddii aan u dhigno filla Soomaaliya, taas oo laga yaabo in culays badan mucaaradku ay si kala doorashadaas Ciro ku soo baxay ay u arkaan. golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaana waxay aad kaga soo horjeedeen in Maxamed Xasan Ciro uu ka qayb qaato doorashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal, balse ugu dambeyn maanta ayaana la soo gabagabeeyay, isaga ayaana la doortay. nabad iyo nolol ayaa hadda waxay u muuqataa mid iyadu ku guuleysatay loolankii ay kula jirtay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya, waxaana Ciro uu ahaa mid dabada ay ka riixayso filla Soomaaliya, balse maanta ayuu ku soo baxay. dacwad ka dhan ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa loo gudbiyay xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. warqad ka soo baxday xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka Dr. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye oo cabasho ka dhan ah gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigeenkiisa koowaad Caana Boore ayaa la gaarsiiyay xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kol hore madaxweynaha u idlaaday. xogo la helayo ayaa waxay sheegayaan in xafiiska hantidhowraha guud uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u sheegay in musuqmaasuq baan uu ka socdo gobolka Banaadir, isla markaana lagu takrifalayo hantida dadweynaha ama hantida ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa la sheegay in hantidhowrka qaranka uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u xaqiijiyay in la xiray akoonadii gaarka ah ee gobolka Banaadir, lacagtii dowladda hoosena lagu shubto akoono gaar ah oo aysan jirin cid la socota, iyo in qayb ka mid ah mushaaraadka shaqaalaha gobolka Banaadir aan weli la bixin ilaa iyo hadda sabab la xiriira musuqmaasuq ka jira gobolka Banaadir oo lacagtaas la musuqmaasuqayo. warar kale oo la helayo ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gudoomay warqadaas, isla markaana uu ballan ku qaaday in wax badan ay ka qaban doonaan eedeymaha loo jeedinayo mas'uuliyiinta ka tirsan gobolka Banaadir oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo ku-xigeenkiisa koowaad ee Caana Boore. dacwadda uu gudbiyay xafiiska hantidhowraha ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa maalmo uun ka hor toddobaadka xorriyadda, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda wax uu ka qabto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dacwaddaas uu gudbiyay hantidhowraha guud ee qaranka, isla markaana laga gudbiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa sii kordhayay maamul xumada iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira gobolka Banaadir, kuwaas oo saameeyay guud ahaanba shacabka gobolka iyo tan dowladda hoose ee Xamar. sidoo kale waxaa la shaaciyay warbixino wata cadeymo oo si buuxda u faahfaahsan kuwa oo akoono gaar ah uu maamulo gobolka Banaadir uu furtay, isla markaana lagu shubo lacagta gobolka, iyadoo uu arrintaasi kaga hor yimid hantidhowraha guud ee qaranka. maamulka gobolka Banaadir ayaa weli waxaa loo haystaa eedeymo kala duwan oo la xiriira musuqmaasuq, kuwa oo muddooyinkii ugu dambeeyay laga soo calaameynayay, isla markaana gobolka uu ku kacayay. Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigeenkiisa koowaad ayaana dacwaddaasi ka dhanka ah waxaa loo gudbiyay xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo madaxweynuhu uu xusay inuu ballan ku qaadayo in wax badan laga qaban doono musuqmaasuqa laga soo sheegayo gobolka Banaadir.
qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo saraakiil sarsare ayaa waxaa lagu eedeeyey fal aad u xun. warbixin uu daabacay Global Initiative ayaa waxa uu daha ka rogay saraakiil sarsare oo dowladda Soomaaliya ka tirsan isla markaana ku lug leh fududeynta kalluumaysiga sharci darrada ah ee xeebta Badweynta Hindiya, taasi oo kicin karta duufaano siyaasadeed oo dalka ka dhici karta oo durba lagu jiro xilligii doorashada. Qormada ciwaankan looga dhigay kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya iyo qabsashada hay-adaha dowladda ayaa ka shiftay in wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Cabdullaahi Bidhaan Warsame iyo wasiiru dowlaha maaliyadda Maxamuud Xayir Ibraahim ay safka hore kaga jiraan ganacsiga sharci darrada ah ee hadda ka taagan Badweynta Hindiya. Tani ayaa waxay bixinaysaa aragti cad oo ku saabsan sida kalluumaysiga sharci darrada ah ay lacago aad ugu tiro badan ay ugu sameeyeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada dalka. Sida lagu xusay warbixinta, saraakiishan oo xiriir dowlad leh hoggaanka sarsare ee dowladda ayaa waxaa qaarkood ay kaga faa'iideysteen hay-adaha dowladda ee daciifka ah in ay jebiyaan sharciga, mararka qaarna aysan waxba ka warqabin dowlad goboleedyada dalka. Ma jiro sharci cad oo kalluumaysi oo Soomaaliya ka jira iyo qaacido qeexaysa in dakhliga dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka waxa ayna inta badan qaataan laaluush ay kaga faa'iideysanayaan. ganacsatada damiir laawayaasha ah iyo saraakiisha loo egmaday in shacabka u adeegaan ayaana hadda iyagu waxa ay dhankooda ay ku kacayaan falal ka baxsan bini'aadanimada. maamulka magaalada Muqdisho ayaa lala xiriirinayaa in badan oo ka mid ah xasaanada waaxda kalluumaysiga oo ay ka mid tahay ruqsadsiinta shirkadaha qaar, taas oo su'aalo ay ka keeneen dowlado ay ku jirto maamulka Puntland. Sida uu sheegay ganacsade Soomaaliyeed kaas oo ka shaqeeya waaxda kalluumaysiga, Wasiir Ibraahim ayaa waxaa la sheegay inuu ilaalinayo danaha shirkadaha kalluumaysiga ee heer federaal. Marka laga soo tago bixinta shahaado caafimaad, wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ayaa sidoo kale wada ansixinta iyo sharciyeynta ruqsadaha kalluumaysiga ee ay bixisay maamulka Puntland xilligii maamulkii Cabduuli ee ku aadanaa dadka tahriibayaasha ah, inkastoo tahriibku uu sharci darro ka yahay gudaha waddanka Soomaaliya. Warbixintan ayaa tibaaxday in shatiga kalluumaysiga uu saxiixay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Maxamuud Sheekh Cabdulaahi Cabdiraxmaan bishii Oktoobar 2020. kalluumaysiga Soomaaliya ayaa hadda waxa uu muuqda mid aad u sii baahaya, waxaana dowladda Soomaaliya dhowaan heshiis ay kala saxiixatay dowladda federaalka Itoobiya, taas oo ku saabsan wax isdhaafsi dhanka ganacsiga, iyadoo Itoobiya loo rarayo kheyraadka badda isla markaana laga keenayo ganacsi kale oo dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiis dhowaan kula saxiixatay. Golaha wakiilada maamul goboleedka Puntland ayaa waxay u codeeyeen wax ka bedel lagu sameeyay xeer hoosaadka golaha sida mooshin lagu gudbinayo gudoomiyahooda oo markii hore ay soo jeediyeen 34 xildhibaan ayaa waxaa laga dhigay 44 mudane. waxaa xeerkan 3 meel 2 meel uu dhigayaa in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland soo jeedintooda uu ku weyn karo xilka. haatan waxaa la mid ah gudoomiyaha golaha wakiilada, maadaama goluhu uu aqbalay soo jeedintaas. fadhiga ayaa waxaa soo xaadiray 52 xildhibaan, waxaana ansixinta xeerkaas u codeeyay 38 xildhibaan. 10 ka mid ah ayaa diiday, iyadoo sidoo kale ay ka aamuseen 4 kale, sida uu sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. wax ka bedelka xeer hoosaadkan waxaa soo gudbiyay guddiga shuruudaha iyo cadaaladda ee dowlad goboleedka Puntland. akhrin kadib golaha wakiilada ayaa loo qeybiyey, ugu dambeyn maanta ayaana loo codeeyay. ujeedka rasmiga ah ee keentay isbedelkan ayaana waxaa lagu sheegay cabsi laga qabo in xilka laga qaado gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Puntland oo daacad u ah maamulka uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Deni. dhanka kale waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in xildhibaanada qaar ay diyaariyeen mooshin laga keenayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo la sheegay inuu yahay mid fadhiid ah, isla markaana aysan ku qanacsanayn shacabka reer Puntland. waxaana hadda cadaadis xoogan xildhibaanada qaarkood ay kala kulmayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, gaar ahaan madaxtooyada. diyaarad military ayaa ku burburtay Filibiin iyadoo uu ka dhashay khasaare kala duwan. diyaaradda ayaa ku burburtay tuulo lagu magacaabo Bankakaal ee degmada Bitaakul. ugu yaraan 85 askari oo saarnaa diyaaraddaas ayaa laga soo dejiyay jasiiradda lagu magacaabo Jolo Island ee ku taala gobolka Sulu. ila wareedyo ayaa waxay sheegayaan in duuliyihii diyaaradda uu seegay dhabaha ay diyaaraddu cagaha dhigan lahayd ee runway-ga. taliyaha guud ee militariga dalkaasi Filibiin ayaa isagu waxa uu sheegay inay socdaan baaritaano waxa sababay shilkaasi. ciidanka la socday diyaaradda burburtay ayaa waxay u socdeen howlgal ay kula dagaalami lahaayeen kooxda lagu magacaabo Abu Sayaafa ee u halgamaysa in madax banaani ay u helaan
gobolka Suulo ee dadka muslimiinta ah ay degan yihiin. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato, subscribe noo saar oo gambaleelka furo, asxaabtaadana u sheer garay.